Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena oon kusoo qaadanayno types of shallow foundation noocyada kala duwan ee shallow foundationka uu leeyahay waan kasoo hadalnay shallow foundation waxa uu yahay videogan ama slide-kan waxaan ku baranaynaa qaybaha loo kala qaybiyo shallow foundation kuwa ugu caansan marka halkan ayaan ku xusnay kan koowaad aan ka hadli doono wuxuu noqon doonaa column footing or individual footing or isolated footing waa isku wada magac waay okay nooca labaad wuxuu noqon doonaa wall footing strip footing ama continuous footing waa isku wada magac saddexdaas magac baa iska leh nooca saddexaad aan ka hadli doono waxa waaye waa combined footing okay nooca afraad waxaan ka hadli doonaa cantilever ama strap footing okay nooca shanaad oo ka hadli doonana wuxuu noqon doonaa raft or mat foundation nooca koowaad hadaynu ku bilowno oo magacyo badan leh column footing waa dhigi kartaa individual footing waa dhigi kartaa ama isolated footing waa dhigi kartaa okay marka waxaa lagu yiri noocan waa kan ugu caansan marka laga hadlayo typeska foundationka uu leeyahay si gaar ah shallow foundationka kan ugu badan isticmaalkiisu ama ugu caansan waxaa la yiraahdaa isolated footing okay isolated footingka marka waa nooc kamid ah foundationka sida hore u sheegnaba waxaana loo isticmaalaa marka inuu support gareeyo ama uu celiyo single column hal column inuu celiyo or pier so marka column iyo pier labadaba waa compression members marka columnka marka waxaa la isticmaalaa inta badan markii dhismaha ama building laga hadlayo kana waxaa la isticmaalaa markii bridgeska ama flyoverska buundooyinka markii laga hadlayo ayaa la isticmaalaa kan inta badan waxaa la yiraahdaa vertical ahaan ayuu wax u support gareeyaa laakiin kan waxaa la yiraahdaa horizontally iyo ma arshay horizontal iyo shay vertical intaba wuu support gareeyaa okay so marka muhiimadan waxay tahay isolated footingka wuxuu support gareeyaa hal column okay hal column oo mesela column kan oo kala ah yani footingka ku support gareenayo ayaa waxaa la yiraahdaa isolated footing okay so marka waa qaabkaas waaye okay so marka magacyo badan uu leeyahay sida horeba u soo sheegnay saddex magac oo kamid ah so marka column footing waa la yiraahdaa pier footing waa la yiraahdaa pedestal footing waa la yiraahdaa spread footing xataa asaa la yiraahdaa marka uu magacyo badan yahay magacyada hadda aragto ha ku wareerin waa the same thing waa okay hal shay laga hadlaa okay marka spread footingka oo isolatedka ah wuxuu noqonaa rectangle okay yani rectangle inuu noqdo laga yaabaa okay rectangle-ka aad taqaan inuu noqdo ayaa laga yaabaa square noqon karaa okay square-na wuu noqon karaa sidoo kale okay wuxuu noqon karaa circular lagu dhahay inuu noqdo shay circular ah marka thickness-kiisana wuxuu noqonaa marka uniform oo thickness-ka xaggan aad ku haysato iyo thickness-ka xaggan aad ku haysato will be same okay ama uniform ayay noqon doonaan markaana waxaa isla arkaynaa sababaha keenaya in isolated footing aan sameyno ama aan ku qasbanaanayna inaan isticmaalno sababaha keeni karo sababta ugu horeysa waxay tahay waa economical waa macnaha jeebka ayuu u roon yahay oo ma qarash badna okay marka la fiiriyo kuwa kale oo dhan kan ugu fiican xagga wax dhaqaaleynta isaga ayuu noqonayaa okay so marka maadaama dhaqaalaha inta badan aad loo tixgeliyo sababaha uu qasbi karo waxaa kamid inuu economical yahay qodobka labaad oo nagu qasbi karo ama sabab u noqon kara inaan isticmaalno ama samaysano isolated footing wuxuu yahay waa markii soil bearing capacity-gaaga high uu yahay yacni waxa waaye soil bearing capacity waxaa la yiraahdaa awoodda ciidda ay isaga caabinayso loadka lasoo saaro okay so marka awoodeeda haddii ay aad u sareydo awood iska caabinteeda aad u fiican yahay yacni noocan aan isticmaali karnaa isolated footing aan isticmaali karnaa okay sababka saddexaad wuxuu noqonaa marka culayska footingka lasoo saarayo uu yahay mid yar okay less waa yani culays heavy ah aad u culus haddaad tiraahdo waa saaraa isolated footing ma ku habboona marka culayska footingkaada loo soo isticmaalayo waa inuu noqdaa mid yar sida guryaha residential buildingka oo iska 2 piano 3 piano ilaa 4 ilaa 5 hadduu culayska u yar yahay waa la isticmaali karaa isolated footing okay reasonka afraad wuxuu noqonaa haddii column-ka dhismahaada u isticmaalaysid aysan isku dhoweyn okay yacni column-a meeshan yaallo tusaale ahaan column-ka hadda marka wuxuu kaa rabaa footing u samayso sidaan oo kale footing okay haddii column kale marka agtiisa uu yaallo bartaan oo kale uu yaallo waxaa dhacaysa footingka u samay markaa maagto inay isdhexgalaan okay way isdhexgalayaan so marka isdhexgalitaankaas waa inuusan jirin okay oo column-yada ay kala fog yihiin space fiican oo ku filan waa inay leeyihiin okay haddaysan isku dhoweyn column-yadeeda isolated footing waa isticmaali karnaa qodobkaas alahaas uu ka hadlaa okay so marka waxaa jirto noocyo oo marka design-ka laga hadlayo kale noocyo loo qaybiyo isolated footing oo noqonayo nooca koowaad maxaa la yiraahdaa bad footing or simple spread footing waa noocan hadda aan ka hadlayno okay sawiradoodana waa arkaynaa okay nooca labaad waxaa la yiraahdaa stepped spread footing okay isagana waa isla arkaynaa stepped sawirkiisa ayaan arkaynaa nooca saddexaadna waxaa la yiraahdaa sloped spread footing okay sawirada marka aan wada aragno nooca hadda aan ka hadlaynay oo bad ama simple stable ahay waa noocan yacni
waxa waaye kan caadiga ah oo ma aragtay thicknesskiisa oo dhan uu isla wada mid yahay waaye okay thicknesska xaggan aad ku haysato iyo thicknesska xaggan same waaye okay يعني thicknesska uniform ah okay markaan sida loo shubayo waa okay formworkiisa loo diyaariyo birta la dhigo qaabkaas ayaa loo shubaa noocan qaabkan u yaalo waxaa la yiraahdaa simple spread footing ama bad footing ayaa la yiraahdaa okay nooca labaad marka waa kanaha waa step qaabkiisa step ah macnaha sidii jaranjarta oo kale waaye okay hadda waa kan waa step kale okay kan waa step kale okay so marka waa jaranjar camal waa 1 waa 2 waa 3 okay qaabkaas marka loo sameeyaa okay kan marka waxaa la yiraahdaa uu ka bir yar yahay uuna ka ma aragtay shub yar yahay markii la fiiriyo kan sababtoo ah yani hadda spaceka meelahan ka maqan waa meelo biro iyo shub badan ay gelayaan so marka loo fiiriyo isolatedka waxa waaye waa ka shub yar yahay waana ka bir yar yahay laakiin marka kale kana bir badan oo shub badan okay nooca saddexaadna wuxuu ahaa sloped spread footing okay slope maxaa loo dhahaa marka janjeera ku jiro okay hadda ujeedid slope ku jiro oo qaabkaas trapezoidalka oo kale ah waa okay angle-kiisana waxaa lagu ilaalinaa afartiisa dhinacba slope waxaa lagu ilaalinaa 45 degree okay so marka waa ujeedaa waa sidaas oo kale slope-kaas ku jiro okay slope-kaas ayaa isagoo dhan ku jira noocaana marka xilliga aad loo soo isticmaali jiray markii la dhaho residential building ama guryaha deegaanka ah balse yacni sanadahan dambe lama isticmaalo oo waa laga tegay so marka saaxiibayaal inaad wax badan ka fahanteen ayaan rajeynaya videogana halkaan ayaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantihiin